Pink Iconic iyo Gabriel Agreste waad ku mahadsantihiin taageeraha. Filimku wuxuu ku bilaabmayaa dagaal gacan oo u dhexeeya nin lagu magacaabo Bang Wei Gang iyo laba dhalinyaro oo doonaya inay dilaan. Wei Gang uu iska celinaya waxaan uga adkaanayaa si fudud. Burcadii kale markay arkeen inuu saaxiibadooda si sahlan u dilay intay is eegeen ayay yaabeen. Isla xilligaa wuxuu fariin ka helay xaaskiisii oo ka dalbatay inuu ammaankeeda ilaaliyo gabadh da'yar ah. Waxaanay ku adkaysay inuu u keeno gabadhaas oo nabad qabta. waxaynu ku laabanaynaa 3 cisho ka hor dhacdadan. goor uu Wei Gang guriga joogay uuna akhrisanayay buug, waxa uu timi xaaskiisa Hu Yunsu. waxay u sheegtay in iyadii saaxiibteeda Kim Suwa doonayaan inay u dalxiisaan jasiiradda Jeju Island. dalxiis kaliyana aanay u baxayn ay sidoo kale u kuurgalayso siday goobta maqaayada ugala dhisi lahayd saaxiibteed. waxay u sheegtay inay isleedahay 2 wiig soo joog jasiiradda, waxaanay ninkeeda ka codsatay inuu ammaankeeda si ilaaliyo gabadh ay aayo u tahay saaxiibteed. waa gabar 17 jir oo lagu magacaabo Yonji. ugu horreyntii wuu diiday waxaana dhex maray muran, laakiin markii dambe way ku qancisay waanu yeelay. wuxuu xaaskiisii iyo saaxiibteed Kim Suwa geeyay madaarka, waxaanu ka ballan qaaday inuu ilaalin doono gabadha yar. waa goor habeena, Wei Gang wuxuu dhex hurdaa gaadhiga, waxaanu gabadhii ku sugayaa bannaanka iskoolka. in yar kadib waxaa u timi gabadhii yarayd, waxaanay u sheegtay inay doonayso inay guriga saaxiibteed dhowr cisho soo joogto. waxaanay ka codsatay inaanu waalidkeed u sheegin. wuu ka oggolaaday maxaa yeelay isagay dan u tahay oo wuxuu doonayay inuu waqti firaaqaa helo. wuxuu ka qaaday shandadeedii waxaanu ugu riday xoogaa lacaga, waxaanu u sheegay inay la soo xidhiidho haddii caawimo u baahato. kadibna wuxuu ku laabtay gurigiisii. wuxuu ku toosay isagoo hurda teleefankiisii oo dhacaya. waa Yonji oo caawimo u baahan, doonaysana inuu ugu yimaado bartay joogto. wuxuu ka haystay gaadhigiisii waxaanu u jihaystay meeshay u sheegtay inay joogto. laakiin markuu goobtii tegay waxaabuu arkay inay fiican tahay. wuxuu arkay iyadoo meel la fadhida nin. Yonji waxay ninkii ay la fadhiday bartay Wei Gang, waxaanay ku tiri waa adeerkay. intaa kadib Wei Gang waxay ku tiri ninkan iskuul ayaan nahay. ilbiriqsiya kadib ninkii wuu baxay. Wei Gang wuxuu weydiiyey sababta xilligan dambe la fadhiisiisay ninka. sawdigii lahaa waxaan joogayaa guriga saaxiibtay. intaa kadib Yonji way iska dhaga tirtay su'aalihii Wei Gang, waxaana isku mashquulisay teleefankeeda. wuxuu ka codsaday inay guriga u raacdo, laakiin way diiday. waxaanay ku tiri waxaan tegayaa gurigii saaxiibtay. intaa kadib wuu xanaaqay waxaanu go'aansaday inuu gurigiisii ku laabto. isagoo bannaanka taagan wuxuu arkay inay raacday mooto uu watay ninkii ay tiri iskuul ayaan nahay. kadib wuxuu go'aansaday inaanu intaa in ka badan danayn oonu dabagelin, waanu iska baxay. laakiin isagoo dhexda sii socda waxaa fariin u soo dirtay Hu Yunsu, waxaanay weydiisay xaalka Yonji. sababta awgeed wuxuu dib u soo kala celiyey gaadhigii. waxaanu gabadhii ka raadraacay qalab raadraaca uu ugu riday shandada markii uu lacagta ugu ridayey. ninkii ay Yonji raacday wuxuu u geeyey gabadh lagu magacaabo Sang Yeon, waana gabadh gacmaha kula jirta falal dambiya. waxay wiilasha qurxoon u dirtaa inay u keenaan hablo da'yara. intaa kadib waxay hablaha yaryar ku qasabtaa inay jidhkooda ka ganacsadaan. hablaha yaryar ee gabadhan u afduubnaa waxaa ka mid ahaa Yonji iyo saaxiibteed way ilmaysay waxaana ka bariday Sang Yeon inay sii dayso, laakiin dan kamay gelin waana dhirbaaxday. Yonji waxay isku dayday inay la dagaalanto gabadha haysata, laakiin dagaalkeedaasi waxba mu soo kordhin. intaa kadib waxaa goobta soo gaadhay Wei Gang, waxaanu ku amray inay gabdhaha yaryar sii daayaan, laakiin way diideen. wuxuu ku hanjabay inuu dhammaantood layn doono, laakiin way iska indhatireen digniinihiisa. waxaanay gabadhii fartay ilaaladeedii inay dilaan Wei Gang. maadaama uu Wei Gang dagaalka khatar ku ahaa, waxa u suurtooday inuu dhammaantood garaaco. gabadhii waxay ka tooriyeysay caloosha, laakiin dhaawac sidaa weyn may gaadhsiin. ugu dambayntii wuxuu gabadhii ku suuxiyey dhirbaaxo, waxaanu labadii hablood geeyey guriga. maalintii xigtay Yonji waxay weydiisay shaqada uu qabto, maadaama uu guri qasriga degan yahay. waxaanu ugu jawaabay inuu leeyahay hanti maguurto ah, waxaanu ka codsaday inaanay sii weydiin su'aalo shakhsiya. fiidkii markii gaadhay Wei Gang wuxuu gabadhii u kaxeeyey casho, waxaanay mareen waddada meeshii ay dhibaatadu ka dhacday habeenkii hore. waxay arkeen inay askar badani goobta joogto baadhitaanna ka wado. mid ka mid askartii ayaa istaajiyey gaadhigii Wei Gang. askarigii wuxuu sheegay inuu meesha dil ka dhacay, waxaanu weydiiyey waxyaabo la xidhiidha dhacdada. Wei Gang wuxuu su'aalihii uu askarigu weydiiyey uga wada jawaabay si degan, laakiin Yonji waxay u naxday sidii qof wax qarinaya, waxaanay ka baqday in la qabto. markuu gurigii tegay Wei Gang wuxuu akhriyay wararka, waxaana ogaaday qofka meesha ku dhintay inuu yahay mid ka mid a dhalinyaradii uu garaacay habeenkii uu Yonji badbaadinayay. Yonji waxay qof weydiisay waxa meesha ka dhacay, waxaana ogaatay in la dilay mid ka mid a wiilashii. askarigii dambi baadhista ahaa wuxuu guriga ugu yimi Wei Gang, waxaanu weydiiyey sababta uu u dilay. wuxuu tusay inay gaadhigiisa kamaradaha ammaanku qabteen isagoo meesha maraya 30 daqiiqo ka hor intaanu dembigu dhicin. intaasoo kaliya maahe, askarigii wuxuu sii tusay caddaymo kale oo ku tuhmaya inuu isagu dilka geystay. wuxuu tusay gabadhii Yonji oo la socota mid ka mid a dhibanayaasha. si kastaba ha ahaatee, Wei Gang wuu diiday inuu faahfaahin bixiyo. intaa kadib askarigii wuxuu weydiiyey xidhiirka ka dhexeeya gabadha Yonji iyo isaga. kadib wuxuu ugu jawaabay inuu ilaaliyo.
markuu askarigii baxay Wigang wuxuu gabadhii ka codsaday inay u sheegto runta haddii ay macluumaad ka hayso wiilkii dhintay ee iskuulka ahaayeen isagoo jawaabtii sugaya Wigang wuxuu soo xasuustay mar uu la kulmay gabadh doonaysay inay istisho wuxuu weydiiyey waxay rabto waxay ka codsatay inuu laabta geliyo waanu geliyey intaa kadib way miir beeshay Wigang wuxuu ka soo laabtay xasuustii markuu maqlay Yonji telefonkeeda oo dhacaya markuu ogaaday qofka soo wacay telefonku inuu yahay gabadhii afduubatay Yonji ee Sang-yeon uu ka qaaday telefonkii waanu la hadlay waxay u sheegtay Sang-yeon inay farihiisu ku yaalaan tooridii ay isticmaalaysay waxaana ku tiri waa inaynu kulannaa haddii kale waxaan caddayntan tusayaa booliska wuxuu Yonji siiyey raadraac uu ku ogaado kolba halkay joogto waxaana uga tegay guriga intaa kadib wuxuu diyaarsaday hubkiisii Sang-yeon waxay isleedahay markuu kuu yimaado dil laakiin aqoon uma laha inuu ninkani yahay dilaaweyn oo howlgallada dilka ka fuliya South Korea keliya ma aha ee adduunka oo dhan wuxuu diyaarsaday hubkiisii waanu baxay si uu la kulmo Sang-yeon markuu dhismihii lagu ballamiyey tagay wuxuu albaabka guriga kula kulmay nin lagu magacaabo Jang waa nin ay ilmadeer yihiin Sang-yeon oo kala shaqeeya suuqgeynta hablaha da'da yar wuxuu ugu yeedhay nin xoog weyn balse Wigang wuxuu dhulka dhigay ninkii waxa rabshadii maqashay Sang-yeon waxay timi meeshii waxaanay kulmeen Wigang wuxuu ku yidhi gacanta iga saar tooridii farahaygu ku sawirnaayeen dagaal ba'an kadib wuxuu gacanta ku dhigay tooridii waxaanu eriday Sang-yeon iyo inadeerkeed laakiin si lama filaana wuxuu galay qol ay u diyaariyeen oo uu ku jiro nin sidiisa oo kale dagaalyahana Wigang iyo ninkii waxa dhex maray dagaal ba'an ilaa ugu dambeyntii uu Wigang si daran u dhaawacay ninkii halkaasna iskaga reebay dagaalka kadib wuxuu ku soo noqday gurigii wuxuu arkay in la afduubtay Yonji wuxuu ka eegay halkay geeyeen qalabkii raadraaca ahaa ee uu dhiibay waxaanu tegay guri dusha caadi uga eeg laakiin loo isticmaalo in lagu iibiyo hablaha yaryar ee aan qaangaadhin Wigang markuu guriga galay wuxuu maqlay qaylada mid ka mid ah gabdhaha wuu ogaaday inuu nin garaacayo uu ku celiyey waxaanu weydiiyey halkay geeyeen Yonji Sang-yeon oo guriga ku jirtay ayaa ogaatay inuu Wigang guriga soo galay waxaanay u carartay bannaanka laakiin wuu qabtay waxaanu weydiiyey halkay geysay Yonji way diiday inay u sheegto laakiin wuxuu u jirdilay si xun ugu dambeyntii waxay u sheegtay una faahfaahisay inay si badheer ah uga ganacsadaan karaynta gabdhaha aan qaangaadhin jirkooda waxay kaloo sheegtay inuu hogaamiye u yahay Jang si ganacsigooda ugu suura galana waxay u sheegtay inay gacansaar la leeyihiin bar ka mid ah askarta faa'iidadana ay qaybsadaan Sang-yeon waxay u sheegtay Wigang in Yonji iyo gabdho yaryar oo badan dhowaan loo dhoofin doono waddanka Ruushka waxaana ugu dambeyntii uu sheegtay ciwaanka guriga uu iminka hogaamiyahooda Jang ku diyaarinayo gabdhaha yaryar in yar kadib askarigii Yang Ho ayaa goobta soo gaadhay waxaanu arkay Sang-yeon oo dhaawac xune ku yaallo Wigang wuxuu tegay dhismihii Sang-yeon ugu sheegtay in gabdhaha yaryar lagu hayo waxaanu halkaa kula kulmay dhalinyaradii aynu arkaynay filimka bilowgiisa isagoo la dagaalamaya waxaanu awooday inuu dhammaantood ka adkaado waxaa soo muuqday nin timo midaba leh oo lagu magacaabo Yuri asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa Ruushka waxaanu u shaqeeyaa maafiyada Ruushka wuxuu u sheegay Wigang in gabdhaha yaryar Brito 8 subaxnimo markab Ruushka tagaya lagu qaadi doono Wigang wuxuu doonayay inuu ka gaadho gabdhaha intaan la qaadin laakiin ka hor wuxuu dagaal adag la galay Yuri wuxuu la koray dabaq waxaanu ku soo xidhxidhay xadhig isagiina uu ka soo booday dabaqii waxaanu ku soo dhacay gaadhi dabagal ku hayay oo uu leeyahay askarigii Yong Ho wuxuu isla markiiba baastoolad ku qabtay Wigang waxaanu ku eedeeyay inuu ka dambeeyay dilal kala duwan Wigang wuxuu ku wajahay si degan waxaanu si xeeladaysan uga qaaday baastooladii waagii markuu bariyay wuxuu gaadhi ku qaatay Yong Ho waxaanu tegay dekada si uu Yonji u badbaadiyo wuxuu wada laayay raggii qafaalanayay Yonji waanu badbaadiyey gabdhihii intaa kadib wuxuu meesha ku dilay Jang oo diiday inuu u sheego qofka ugu weyn ee ka dambeeya gabdhahan la dhoofinayo wuxuu ogaaday inuu Yong Ho ka mid yahay askarta musuqmaasuqa kula shaqaysata maafiyada wuxuu ugu hanjabay inuu kashafi doono haddaanu fulin dhammaan waxyaabaha uga baahdo uu ka aqbalay waxaanu ogolaaday inuu Wigang ka fogeeyo dadkii uu laayay mar dambena aanu eedayn Yonji wax la dhigay hospitaalka wuxuu Wigang u sheegay inay wax kastay og tahay booliska la wadaagto Yonji way murugaysan tahay waxaanay ku calaacalaysaa inay waxaan oo dhan sababteeda ku dhaceen laakiin wuu dejiyey waxaanu ku yidhi kaliya ka fikir sidaad u bogsan lahayd Wigang wuxuu hospitaalka kula kulmay Yong Ho wuxuu u sheegay inuu iminka doonayay inuu ogaado maafiyadii Ruushka ahayd ee doonaysay inay qafaashaan Yonji iyo gabdhaha yaryar ee kale ugu horreyntii Yong Ho wuu diiday inuu u sheego maxaa yeelay waa arrin halisa laakiin wuxuu ugu hanjabay inuu fashilin doono maalmo kadib Wigang wuxuu la kulmay Huyunju waa nin hub kaybiyo ay saaxiibo yihiin laakiin iminka iska daayay wuxuu u sheegay inuu ka caawiyo sidii uu ku heli lahaa hub wanaagsan maxaa yeelay waxa uu taalaa shaqo uu rabo inuu si degdeg ah u dhameeyo fiidkii Wigang waxa la soo hadlay Yang Ho wuxuu u sheegay meesha uu joogo nin lagu magacaabo Park oo xubinka ah maafiyada hablaha yaryar jirkooda ka ganacsata Park markuu ogaaday in la fashilay wuxuu isku dayay inuu baxsado laakiin Wigang ayaa ka soo gaaray wuxuu dilay dhammaan burcadiisii waxaanu ku qasbay inuu macluumaad siiyo wuxuu u sheegay inay la shaqeeyaan haweeney isqarisa oo lagu naanayso Big Mama taasoo kasii iibisay gabdhaha yaryar nin lagu magacaabo Kim wuxuu sidoo kale u sheegay inay gacan saar leeyihiin maafiya Ruush oo gabdhaha Ruushyaanka ka iibiya
iyaguna ay ka iibiyaan kuwa South Korea u dhashay. wuu dilay wuxuu wacday qof waxaanu ka dalbaday inuu u yimaado. muddo kadib waxa uu yimi rag uu hogaaminayo Tae-hoon. waxay nadiifiyeen goobtii waxaanay qaadeen meydadkii waxaanu Wei-gang u sheegay inuu u baahan yahay garab istaagooda. Wei-gang wuxuu helay hubkii uu u baahnaa. wuxuu Yeonji oo murugoonaysa ku booqday hosbitaalka. waxay la murugaysan tahay geerida saaxiibteeda oo gacanteeda isku dishay. intaa kadib Wei-gang wuxuu wacay askarigii Young Ho waxaanu weydiiyey tallaabada xigta. Young Ho wuxuu macluumaad buuxa ka siiyey Kim. wuxuu u sheegay in ninkaasi qayb weyn ka yahay mashruuca. waxaanu u sheegay inuu yahay nin siyaasadda saameyn xoogan ku leh oo si sahlan lagu xidhi karayn. wuxuu sidoo kale u sheegay ciwaanka goob uu Kim xaflad gaara ku lahaa. Kim isagoo ku mashquulsan hablihii yaryaraayoo iskala baashaalaya ayuu Wei-gang mid u toogtay ilaaladiisii. Yori oo Kim la shaqeeya ayaa dareemay inuu cadow soo galay xafladda isagoo Wei-gang la dagaalamaya raggii ilaalada ahaa ee uu Yori hogaaminayay. waxaa si kadiisa u soo baxay askarigii Young Ho. Wei-gang wuxuu islahaa uu kula barbar dagaalamaya laakiin isagii buu xabad ku qabtay. Wei-gang waa la qabtay waxaanay u geeyeen Kim oo gabadh yaroo miskiin xoog ku haysta. intii qolka ku jireen Young Ho wuxuu u sheegay Wei-gang inaanu ka baqayn haddii uu booliska u dhiibo cadeymaha uu ka hayo ee ah la shaqaynta budhcadda. sababtoo ah Kim ayaa u ballan qaaday inuu caawin doono isagoo ka faa'iidaysanaya la shaqayntiisa booliska sare iyo siyaasiyiinta. intaa kadib waxa Wei-gang loo qaaday qol kale. Kimna wuxuu gabadhii yareed siiyey daroogo waxaana loo faaruqiyey qolka. wayna soo gaagaabinaynaayo Wei-gang wuxuu la dagaalamay maafiyadii waxaanu laayay dhammaantood xitaa wuxuu ku daray askarigii Young Ho. intaa kadib wuxuu wajahay Yori. waxaa dhex maray dagaal adag laakiin ugu dambayntii Wei-gang wuu jabiyey waxaanu ku dilay bartii. Kim isagoo qolka iska jooga wuxuu ku baraarugay Wei-gang oo la jooga. wuxuu siri ciidamadaadii u yeedho laakiin wuxuu u sheegay inuu dilay dhammaantood. Kim wuxuu isku dayay inuu la macaamilo si degan. wuxuu u sheegay inuu lacag badan siin doono sidoo kale ganacsigan sharci darrada ah maamulo uga dhigi doono laakiin wuu ka diiday waxaanu u sheegay inuu yahay muwaadin sharaf leh. Wei-gang wuxuu ka dalbaday Kim inuu u sheego cidda ay tahay gabadha isqarisay ee lagu naanayso Big Mama waxaanu u sheegay inay tahay Suwa. wuxuu kaloo u sheegay inaanay iyadu dhalin gabadha yar ee Yeonji laakiin ay soo korsatay iyaduna ay doonaysay inay gabadha yar ka iibiso Ruushka si ay lacag badan uga hesho. Wei-gang markuu xogtaa ogaaday wuu kacay wuxuu iska dhigay mid baxaya laakiin wuu soo jeestay waxaanu dilay Kim. Suwa oo jasiiradii Jeju kula qadaynaysa saaxiibteeda Huyun Su waxa soo wacay Kim. waxay macasalaameysay saaxiibteed si ay si gaara Kim ugula hadasho. waxay soo kortay gaadhigeedii waxaanay ka qabatay koolkii laakiin la yaabkeeda qofkii soo wacay muu ahayn Kim ee wuxuu noqday Wei-gang oo gaadhigeeda ku sugayay. wuxuu u sheegay inay dhinteen Kim iyo budhcaddii kale sida Park iyo Jang. waxaanu u sheegay inay isaga iyo xaaskiisu maanta kadib gacanta ku hayn doonaan gabadha yar ee Yeonji ilaa ay ka weynaanayso. wuxuu ku amray inay gaadhiga kaxayso. wuxuu geeyey meel cidlo ah waxaanu ku dilay meeshii. muddo kadib Wei-gang wuxuu la kulmay xaaskiisii. waxay waqti wanaagsan ku wada qaateen qorax dhaca xeebta. waxaanu u sheegay inuu ballantii ka soo baxay Yeonjina ay iminka kadib iyaga la joogi doonto. filimku wuxuu ku dhammaanayaa Huyun Su oo dhoolo cadaynaysa ninkeeda laabta ku haysa una sheegaysay inay tahay gabadhii uu soo xasuusanayay ee doonaysay inay isdisho. filimku waxaa la sii daayay 2022 waxa sameeyey Joe Jae-hoon waxaanu soo xareeyay filimku lacag ka badan $1 milyan.